warkale oo degdeg ah saaxiibayaal Somaliland ayaa ugu dambeyntii war ka soo saartay wixii ka dhacay magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal dhimashada rasmiga ah qasaaraha dhaawac inta uu leeg yahay ay Somaliland ku dhawaaqday iyadoo war kalena soo saartay qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ayaana ka batay intii la filayay haddaba warkan ka soo baxay Somaliland ayaan idin soo gudbinaynaa qodobada kale waxaa kamid ah ee aad daawo doontaan saaxiibayaal habeenkii xalay ahaa waxaa aad loogu faafiyay warbaahinta gaarka ah ee Soomaalida ama dadka baraha bulshada ee fariin sheegaysa in la duqeeyay rag damacsanaa inay weerar ka fuliyaan caasimadda Soomaaliya targetkooduna uu ahaa xarumaha mucaaradka haddaba warkaas waa la isaga daba tagay waxaana soo baxay xogo ku saabsan qaabku suuqa u soo galay iyo cidda faafisay iyo waxa ka jira qodobo kalena waan idin haynaa laakiin daawada ka aragti dhiibo warka ka soo baxay Somaliland iyo warkan la faafiyay ee aan yani hadda xogaha cusub ay ka soo kordheen aragtidaada reeb fariintan meel dheer gaarsi halkana ku soo bir aynu ku bilownay saaxiibayaal habeenkii xalay ahaa war noocan u qornaa ayaa soo baxay warku muxuu ahaa war la qaybiyay isla markaana dadka baraha bulshada loo qaybiyay iyo warbaahinada qaar oo ka socda dhanka dawladda ayaa lagu sheegay in shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo jubbada dhexe meelo kamid ah lagu duqeeyay rag ka tirsanaa kooxaha argagixisada oo damacsanaa inay weerar ka fuliyaan xarumo mucaaradku ku sugan yihiin waa sida la yiri waxa la yiri wararka soo baxay qaabku u qornaa marka aan idin akhriyo duqeymo ka kooban 5 gantaal ayaa lagu fuliyay ama laga fuliyo gobolka shabeellada hoose ama dhexe iyo gobolka shabeellada hoose kuwaas oo saabay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shabeellaha dhexe gantaalada ayaa ku dhacay xarun tababar oo ku taala deegaanka Kuunyo Barrow taas oo ay ku sugnaayeen ciidamo gaar ah oo ajaanibta halka ku dhimatay ayaa la sheegay inay ahaayeen injineer muhiim ah waxaana sidoo kale jira dad badan oo ku dhaawacmay weerarka tirada dhimashada ajaanibta ayaa gaartay ilaa 26 la sheegay waxaana kamid ahaa shakhsiyaad lagu kala magacaabi jiray Fasuuli Abu Ansari Abu Turabi iyo Abu Hashi kuwaas oo dhamaantood soo jeediyay ama ka soo jeeday dalalka Carabta sida Suudaan Masar iyo Yemen sidoo kale shabeellada dhexe ayaa lagu bartilmaameysada sida la sheegay xarun kale oo yaaleen gawaari qaraxyo lagu rakibay kuwaas oo la qorsheynayay in loo gudbiyo magaalada Muqdisho laguna weeraro xarumaha ay degan yihiin xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah gawaaridaasi ayaa la sheegay in loo waday meel duur ah oo ku dhow Nuur Dugle oo maanta la weeraray weerarkaasi wuxuu sababay dhimashada madax sare oo ka tirsanaa amniyaadka iyo jabhadaha argagixisada hubaysan kuwaas oo xilliga ku jira abaabul dagaal qaar kamid ah gawaarida qaraxyada la doonayay in lagu weeraro ciidamada dawladda ayaa Abu Mas'uud la sheegay inuu ahaa sargaalka ugu horeeyay ee halka ku dhintay jubbada dhexena waxaa laga sheegay in degmada Jirib gantaal lagu dhiftay xarun amni oo kooxaha argagixisadu ay lahaayeen 16 sargaalaana lagu dilay war noocaas la faafiyay haddaba maxaa ka runa shaki weyna warkan lagu ku gadaamay sababtuna waxay tahay in la dilay intaasoo argagixiso ah howlgalladana la fuliyay xarun ama bog rasmi ah oo hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISA leedahay laguma daabicin telefishin qaran laguma daabicin wasaarad amni laguma daabicin wasaaradda gaashaandhigga laguma daabicin waa fariin dadka qaar loo qaybiyay tani oo loo arkay inay ahayd sheeko buunbuunin ah ama qalqalgelin ku ah shirka Kismaayo maadaama xarumihii mucaaradka qaraxay loo wadaa la fashiliyay la leeyahay marka taas waa taa warka haduu rasmi yahay sidaan ognahay nabad sugidda bogeeda rasmiga ah lagu daabacaa warbaahinada dawladda lagu daabacaa xarumaha ciidamada ee howlgalka fuliya lagu daabacaa laakiin in la waayo meelahaana aan lagu daabicin dadkaana lagu qaybiyo maxay ka dhigan tahay adiga ku daayay iyo waxa ay kula tahay dhinaca kale saaxiibayaal Somaliland ayaa ugu dambeyntii war ka soo saartay kacdoonkii rabshadaha watay ee ka dhacay Boorama iyada oo hadda qasaaraha Somaliland ay shaacisay uu aad uga badan yahay intii la filayay haddaba Somaliland ma sheegtay Somaliland ayaa si rasmi ah u sheegtay in 19 qof oo shacab ay ku dhinteen ilaa iyo 214 qofna ay ku dhaawacmeen banaanbaxyadii rabshadaha wata ee dhawaan ka dhacay magaalada Boorama waxaan isla daawanaynaa oo aan ku gabagabeynayaa warkeena qaybtiisa labaad wasiirka arrimaha gudaha Somaliland oo arintan isagu ka hadlaya qodobada ka aragti dhiibo fariintan meel dheer gaarsi khasaare halka ka dhacay anigoo ka wakiil madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa la wareegtay xukuumadda inta xanuunsanaysa gacanta lagu haynaya intii dhimatayna waxay xuquuq lahayn xukuumadda la wareegtay waxaan ma ahayn wax qorshaysan oo abaabulan oo Somaliland lagu dhawaataynayo waxa sidoo siyaasadda ka dhacay ayuha rutaadiyad baan uga xumahay وانا كتعسيدين السوماليلاند oo dhan
shacbiga reer awdal waxaan leenahay waa shacbi odayaal u nool yihiin dhaqan wanaagsan waa dad ku sifooba culamaa wadiin caana oo waddankana qayb ka soo qaatay runtii maanta waa munaasabad aad u qiimo badan oo xilka u kala wareejinayno gudoomiyihii hore gudoomiye maxamed xoday iyo cabdirashiid xasan mataan oo ah gudoomiyaha cusub gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u soo magacaabay waa sunnaha dowladnimada xil wareejintu oo wax iska caadi ah waxaan maanta aad iyo aad aan jecelahay inaan kelmad idhaahdo gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub iyo kelmadan hore reer awdal marka hore waxaan leenahay gudoomiyihii hore maxamed 12 bilood baan soo wada shaqeyn anaa wasiirka arrimaha gudaha runtii waxaan qirayaa inuu ahaa hogaamiye dhalinyaro ah oo firfircoon oo niyad samihaya inuu gobolkan taariikh wanaagsan iyo waxqabad wanaagsan u yeesho hadii jeer wuxuu ka hadli jiray markuu noo yimaado waxa gobolkan ka dhiman iyo wax loo qaban karaayo gobolkan ahmiyad gaar ah uu leeyahay Soomaaliland waxa tusaale ah waa gobolkii ugu horeeyay 12 bilood ee madaxweynaha qaranku oo laba jeer yimaado labadaba dhagax buu dhigay horumar gobolka hadday tahay wadooyin hadday tahay caafimaadka hadday tahay madaarka hadday tahay nabadgelyada hadday tahay gurigii gobolka waxay tusaysaa qaranka ahmiyadda ay ugu fadhido gobolkan awdal waxa leeyahay gudoomiyaha hore taariikhdu isma qariso way qabatay iyo dadka u dhaqanteen taariikhda ka waramaysa waa nasiib inta ay joogto waa shaqaaqa yar way dhacday waa wax iska qoran mas'uuliyadda way iska leedahay wuxuuna hadday xagga rabbi ka qoran yihiin wax cid gaar lagu canaanta maaha mar walba way dhici lahayd si kastoo looga hortago way dhici lahayd waxaan leenahay laakiinse in 12 bilood wiigii golaha wasiirada waxaanu siinaa report laga warramayo nabadgelyada gobolkan awdal gobolka ugu nabadgelyada wanaagsan waxaan xasuusanahay markan gobolada sheegayo golaha wasiirada nin baa weydiiyay oo yiri awdal miyaan wax yarba laga sheegin markaasaan u raali galay waxaan marka laga tago xogaa dhalinyaro TikTok oo meelaha ka damooyay gobolkaas oo gobolka ugu xasiloon marka inta uu joogay accident-ka damo mooyaane waxaan cilaaqaad wanaagsan salaadiinta iyo madax dhaqameedyada iyo dadka wada shaqeynaya wada tash walle aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa waxaan rajeynayaa qaranka xilka qofku markuu wareejiyo kama tagin inuu horumar badan ka qaadan doono barasaabadu hadday xilka ka tagaan oo wasaaradda arrimaha gudaha way talooyin fara badan iyo way aragnimo badan ayay leeyihiin wasaaraddaas baa la xidhiidhaya isaga intaasaan maanta leenahay gudoomiye cabdirashiid xasan mataan waxba dardaaran badan oo la maayo waa arag waa raggii dhalinyarada ahay markii la aasaasayay Somaliland lafdhabarta u ahaa oo ka barca ka sheekeynaya shirkii dambe halkan laga doortay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal goobjoog buu ahaa family caano qayb weyn ka qaatay waxaan xasan mataan oo dhan ragiisay ka waana walaalahay gobolkan wuxuu u baahan yahay in Soomaaliya halkay marayso cabdirashiid nin loo sharaxayo ma laakiin dadka reer awdal ma leenay ninku hadduu aqoon la yimaado hadduu kalgacal la yimaado hadduu horumar la yimaado haddaan qofka lala shaqaynin waxma suurtagal laakiin soo xun baa wax qaban karaya qofka lala shaqeeyo way waxa badan shacbiga inuu hogaansanaadaan u dhagan nuglaadaan maqlaan taladiisa qaataan ee laga doonay marka cabdirashiid waxaan kugu ducaynayaa halkaa uu kaga tagay maxamed inaad kor uga sii qaado sidaa la sheegay ciidamadan amnigu waa ciidamada ku filan gobolka wana rag madaxoo way arag badan leh waddankana ka soo wada shaqeeyay si dhowna gudoomiyihii hore ay wada shaqeey jireen adigana ducaan kugu rajeynayaa
waxaan jeclahay reer awdal inay kelmadii gaarsiiyo awdal waa meel taariikhi ah maabkeeduna taariikhda Somaliland meel wacan buu kaga yaala marka aqoon laga hadlaayo ee awdal la yiraahdo ama boorame qofka aqoon iyo cilmi baa ku soo dhacay maskaxdiisa walkii wax lagu soo bartay rag badan oo aan iskuulada halka ka dhisan oo wadanka madaxweynaha ka noqday ayaa ka soo baxay waa wax gaar ah oo ku faanaan imikana waxay ka mid yihiin meelaha ugu horumarsan oo Soomaali oo dhan isugu timaado ay wax ka barato oo wax aad iyo aad runtii loogu faana reer awdal Somaliland inay dhiigooda u huraan mooyaane looga bixi maayo waxay dad propaganda fara badan waxaan yara dhacay ka fidiyay laakiin waxaan ma ahayn wax qorshaysan oo abaabulan oo Somaliland lagu dhawaataynayo waxa sidoo siyaasadda ka dhacay ayuha rutaadiyad baan uga xumahay waana ka tacsiideynay Somaliland oo dhan dadkii dhintay dadkii ku dhaawacmay umayna qalmaynin inay waxaasi nagu dhacaan haddana qadarka eebe naftaa ku go'aysa lama baaji karaayo waa wadan nabdoon buu ahaa waxaan garanayaa boorma oo martay inay tahay gobolka ugu dalxiiska badan leh ay ahayd mid dabada ka yimaada iyo gobolada wadanka oo dhan looga yimaado horumar xawli ah ayuu ku socday inta yare dhacday waxaan filayaa inuu ka soo kaba doono ilaahay ma ka rajeynay laakiin awdal waxaan leenahay wadnihii waatii Somaliland tabashadu way jirtaa cabashadu way jirtaa aadamigu intuu noolyeena wala kala cabanaya dad lagu yaqaanay fidmo iyo ciidamo amniga oo dhagax lagu tuuro iyo wadankii dadka wax loo qabanaya iyo wax laga burburinaya waa shacbiga xafiiskani marka la xafiiskii gobolka waa xafiiskii shacbiga iyaga haddaad miiska burburiso dadkii shacbiga aad waxyeesho haddaad askariga dhagax ku dhufato amnigaaga baad waxyeesho dowladnimadu waa shacbiga inta u shaqeysa waa wax yar haddaana iyagu gacan siinin waxba qaba kari maayo shacbiga reer awdal waxaan leenahay waa shacbi odayaal u nool yihiin dhaqan wanaagsan waa dad ku sifooba culamaa wadiin caana oo waddankana qayb ka soo qaatay waa dad ku sifooba aqoonta Somaliland oo sharaf u tahay saan u sheegay madax badan oo qaarna nool yihiin qaarna dhinteen oo waddanka soo taliyay inay ka baxeen marka ilaahay waxaan u rajeynayaa in waxa yara dhacaynayno iska daweyno horumarkuna sidii u soconayay oo socdo waxaan yar ku darayaa khasaare halka ka dhacay anigoo ka wakiil madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa la wareegtay xukuumadda wixii dhaawacmay iyo wixii dhintay gudoomiyaha gobolka ayaan mas'uuliyadda ku wareejinayaa sidaas aad la soconaysaan haddii alla yiraahdo inta xanuunsanaysana gacanta lagu haynayaa intii dhimatayna waxay xuquuq lahayn xukuumadda la wareegtay sidaas ogaanaysan gudoomiyaha gobolkan ku wareejiyay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh